بسم الله الرحمن الرحيم داود يا كسر دواد تيفيق عالمي جاي قلبي تيفي حرونتي مقالة إدمنتون قبل كالبرتا ودنك كندا عوا وحنو مرتي استوريا هالنوجوا عمر محمد أو حبين سرا كم ذا أود الستيد لين أخذت التلفون كوحنا قلقي بقادن دون أحمد سليمان أو يسوقنا شو مقالة فورت مهموري أو حبين سرا كم ذا خاتم الستيد كسر دواد عمر كوارز تيفيق عالمي waan dhawahay aad iyo aad baad mahadsan tahay marka waxaan ka salaamayaa galbeed TV iyo ummadda Soomaaliyeed shacabka reer Awdal State waad mahadsan tahay waxaan isagana khadka telefoonka ku soo dhaweynayaa Axmed Saleebaan السلام عليكم وسلامتين دمانتين تاديات galbeed TV وسلامية دمان مدة إسلامك وسلامية وأنا جواهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والماسنتين إذن كنا كسوق بشين عاوة أن ورئيسكن مركو جوريس وحنكو بلاوي يا عمر وأن رواينا ويديو شربة بردو توحلو قبتي ويجو هربان في ليا أن ودك السويدن مركز شركة وحلوها الاعتراف الرئيسي تا سومالي لان إذن كهداتين أول ستيل سبب الله ركتين شركة مستقيم مكاهي aad iyo aad baad u mahadsan tahay mudane wariye marka hore waxaan rabaa inaan ka salaamo saaxiibkay Axmed oo khadka ku jira iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba waxa kale oo kan rabaa inaan taxsi uga diro dhalinyaradii Soomaaliyeed dooniyuhu ay kula qaraqmeen badaha badweynta u dhaxaysa Talyaaniga iyo dalka Masar waxaan leenahay ilaahay wa inna ilayhi raaji'uun eladii qaraabadii dadka ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay samiri iibaan waxaan eedda dusha uga saarayaa maxaan ku raadiyay dowladda federaalka Soomaaliya waxa kale oo eedda dusha uga saarayaa maamulka Hargeysa oo iyagu ah dadka ka dambeeyay dadkaasi inay tahriibaan dhibaatada dhalinyarta lagu hayo ayay ka mid tahay waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ummadda Soomaaliyeed iyo dadka eladii qaraabadiina waxaan leeyahay samir iimaan Allah inaga siiyo aamiin waxa kale oo kan taxsi uga diraya dadkii ay abaaraha iyo haraadka iyo dadka ku dileen gobolka Awdal iyo guud ahaan deegaanada Soomaalida waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waana wax ay dhibaato ay sababeen dadka maamulka ummadda Soomaaliyeed gacanta ku haya haddaan u soo laabto su'aashaadan hawshaasi waa jirtay oo waxaan ka aragnay meediyaha laakiin Soomaalida waxay tiraahdaa hal xaaraan iyo niri xalaal ma dhasho Soomaaliland waxay ku bilaabantay xaaraan bay ku bilaabantay ilaa imikana waxay ku socotay xaaraan anagu wax alla waxaan kala soconaa ma jirto mana اعتراafsanin Soomaaliland waxaan ku raacay اعتراaf raadinteedana ka mid banihin dadka ka mid ah ku jiraan waxa weeyaan waa dad u shaqeeya maamulka Hargeysa ma aragnaa saadiraadii anagu ka mid banihin kamana qaybnihin hadii la rabo Soomaaliland اعتراaf loo raadiyo ummadda waqooyiga degan oo dhambe u taala laakiin anagu waxaan aragnaa hadda inay beel oo raadinayso اعتراaf raadinayso de beelna dawlad ma noqon karto marka waxaan leenahay inuu meesha beel ay اعتراaf raadinayso de ummadda kala ka badan ee ku nool waqooyiga ku nool baa ayaa ka badan waxaan la soconaa ay Khartoum state inay jirto Maakil state inay jirto Awdal state inay jirto dadkaas waxa laga wargeliyay ma jiro ummada kala ku nool way ku nool cid laga wargeliyay ma jirto saadiradeed waxaan leenahay waxa la wax ka soconaya ma jiro reer isagu isbaqray oo raba inuu dawlad noqdo ayuunba meesha jooga oo socda community ku nool ma taqaan waxaan aad ugu amaanayaa professor Ahmed Ismail Samatar oo isagu sheegay dadkiis ku yimid meeshaasi in aan isaga laftiisu aanu ku qaraxsanayn qaabka iyo nidaamka ka jira maamulka Soomaaliland uu dhisan yahay waxa uu sheegay in isaga laftiisu u baahan yahay in lagu qarciyo hadii ay beesha dhexe ku qancin karayso Axmed Ismail Samatar qaabka ay u dhisan tahay Soomaaliland waxaan jecelahay isla su'aasha inaan weydiiyo Axmed Saleebaan aduguna bal reer Khartoum idinku laftiinu shirkaasoo aragteen mise qayb ma ka ahaydeen بسم الله الرحمن الرحيم وسؤال هذا في عن يوم المكاني ويقول واشين تري مشكلة نروح قوي تري ومن لو يحيفين تري لكن كذا عمروش يعني هذا مسلم يا عمر يبغى كذا عمروش يعني ما يستوى بيرو كوحسبان لاني له أحيان كذا حيسو أحيان مطلعنا نادكتي ورشيز الكوي ممكن بيربع وقت المرسع إذا روب اللي متاعي دولنا نرتي ماشي كوحن دنقر على كوين الحمد لله وحيد عامل هو كله أخين تأثير أخين خاطم وركول على حي مع أنه مطلع معي محكوم نحي مجلسته شغل بني خاطم من بيستعفي ومامور
maamulkeedana u dhanyahay dowladeedana u dhan tahay una diyaara inay difaacdo dalkeeda in badan baanu nabad raalinay in badan baanu raalinay in ummadda isku xirato in badan baanu idnimada soomaaliya aan ragnay intiina way suurtooda weynay sida aad la socoto 4 Abriil ee sanadkan dekreeta madaxweyne kusoo baxay dowladda finaano kaa noqonay mataqaanaa ictiraafkii aanu haynay diyaarna waxaanu u nahay inaan dalkeega difaacno dhiigna u daato asay badanna loo qaado marka taa anagu waxweyne kama ogin shaqana kuma yihin somaliland yidhaahdo aan aaminsanahay oo tigsada asalaamu calaykum waad mahadsan tahay axmed waxaan usoo noqonayaa cumar waxaan jeclahay inaan ku weydiiyey su-aal muhiim aan rajeynaya inay tahay oo ku saabsan abaaraha ka dhacay guud ahaan somaliland iyo soomaaliya oo dhan haba ugu sii daraato awdal lacag baa jirtay ay dad shacabo iyo soomaaliya iskala qaameen iyo mid ka timidba dowladda federaalka soomaaliya lacagtii muran baad moodaa inuu hadda ka jiro lacag xagee ku dambeysay ninka ka awdalaysay ahaan waa su-aal aad u wanaagsan aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa la soconaa in dowladda federaalka ee soomaaliya ay soo dirtay lacag loogu talagalay dadka abaaruhu ay ku habsadeen ee ku nool waqooyiga soomaaliya gaar ahaan gobolka awdal gobolka awdal waxa weeyaan waa meesha ay ugu darneyd abaaruhu abaaraha waa la saadaalin karaa saadaashii dadkii sheegayna wax kale laga qabtay ma jirto marka iminka markay waxay dhaceen beeshii caalamku aragtay baa markaa dadkii ay kusoo gurmadeen marka waa jirtay lacag dowladda soo dirtay dowladda federaalku lacagtaasina waxaa loo dhiibay maamulka hargeysa loo dhiibay maamulka hargeysana horena ugu gurman iminkana uma gurmanayo dadkaasi waa dad go-doon ku jira weeye oo halkaa ugu ururiyey iminka meel baa lala qunujed baa dadkii lagu soo ururiyey maamulka hargeysa waxaa la xusiyaa ma jirto dowladda federaalkana waxaanu ku cambaaranayaa lacagtaasi siday u maamushay waxay lacagtii faraha laga geliyey dad aan mataqaanaa waxaan ku dhahdaa maamulka hargeysa ka tirsan oo aan doonayn gobolka awdal in la siiyo dhaqaalihii loogu talagalay ilaa hadda meel ay wax gaarsiiyeen lama hayo dhaqaalihiina wuxuu gacanta u galay maamulka hargeysa gacanta u galay waa la soconnaa inuu silaanya tegay meesha silaanya u socda ayaa tegay meesha madaxweyne ku-xigeenka oo kasoo jeeda gobolka awdal ayaa tegay meesha wax alla waxay geeyeenna ma jirto ilaa hadda waxaan ku odhan karo lacagtii halkaasay ku dambaysay ma jirto wax soo gaaray reer awdal ma jirto laakiin lacagtii hargeysay taallaa oo hargeysay gashay waxaana la aaminsan yahay ilaa dadka reer awdal aaminsan yihiin lacagtaasi inay hadda faraha ka baxdayba okay waxaan jecelahay inaan ku noqdo axmed iyo khadka telefoonka axmedow waxaa jirtay beri dhaweyto in aadan aada u fogeyn inay khaatumo kala noqotay xidhiirkii dowladda federaalka ee soomaaliya waynu ognahay inaysan xidhiir fiican la lahayn marka horeba somaliland iyo puntland marka khaatumo xagee ku socotaa bismillahi raxmaan raxiim runtii puntland waxbaanu isku darsanay wakti hore isku darsadkaas oo ahaa kumeel gaar si maaragtay loo helo degenaansho iyo kala dambeyn sida warqadaha ku cad kadib maamul ayaanu samaysanay SSC buu noqday SSC khaatumay dhashay kadibna waxaa nagalay aqoonsi uu saxiixay cabdiweli warqadaasina waa dhowey waa la soo geliyey sidaasay khaatuma dowlad ku noqotay taasi waa dan puntland iyo annaga wax naga dhexeeyaa ma jiraan arrinta kale ee reer qolada reer waqooyiga isaaqa annagu wax tala ah iyo tusaale oo naga dhexeeyaa ma jiraan wax wanaag oo naga dhexeeyaana ma jiraan nabad baa maamulkaygu in badan raadiyey xamar buu u tegey meel walbaa loo maray adduunyadaa la tusay inay kasii darta mooye waa istaagi weyday taa waxaanu go-aansanay inaanu dalkayga difaacno federaalka waa run 4 Abriil buu ku dhawaaqay madaxweynahayagu waa kala noqonay annagu ictiraafkii sababtoo ah waxaanu kala noqonay de wax dana oo noogu jira ayaan jirin iyagaa mas-uulka ah kala go-a dalka taana waxaa caddaynaysa tusaale haddaan kuu siiyo oo inta kaleba aan ka soo gudbo maalintii dhawada abaaruhu dhaceen ee awdal wixii la ogaa ay ka dhacday in loo sii mariyey isaaq wixii la siinayay marka taas waxay caddaynaysaaba inuu isagu mas-uulka yahay laba reer oo qabaa'ila oo meel wada degan oo isleynaya in reer wax loogu dhiibo dee taasaabaa caddaynaysaaba inuu raalli ka yahay marka madaxweynihii sidaa darteed annagu waa kala noqonay dowladda yadaarana
waad mahadsan tahay. waxaan usoo noqonay cumar su-aasha aan rabo inaan ku weydiiyo oo ah tii ugu dambeysay inoo ka faaidaysanayna waqtiga waxay tahay somaliland waa dad badan oo kala duwan baa degan, ama awdal state ha ahaato ama khaatuma ha ahaato ama sool iyo sanaag, meesha la doonaba. marka ma tahay gobolada waqooyi ee somaliland mid kulmin karta? aad baad mahadsantahay walaalo. waxa weeye haddaan su-aasha ka jawaabo, somaliland maaha meel kulmin karta oo ama kulmisay dadkii ku noolaa waqooyiga soomaaliya. waqooyiga soomaaliya beelo fara badan baa ku nool, beelahaasina ku nooli maamulka maanta meesha ka jira reer baa iskale. maamul uu reer leeyahayna dee dadka mataqaanaa ma kulmin karo. waxaan la soconnaa marka laga hadlayo dhismaha dowladda iyo maxaan ku dhahdaa guurtida iyo baarlamaanka iyo golaha sharci dejinta ee maxkamadaha, waxa meesha ka jira oo dhan ba reer baa haysta. taariikhda lama sheegin mataqaanaa reer dhammaan wax il dhaqaale iyo wax walba system meesha ka jiraba dhammaantood gacanta ku haya, kama dhicin adduunyada. laakiin maanta dee Hargeysa ka dhacda waa la ogyahay. Hargeysa waxay tiraa waxaan ka dagaalanay cadaalad darradii ay ka dagaalameen ay sheegayeen baa maanta waxa iyagiiba dadka ku sameynaya. dad baa waxaa lagu xidhaa mataqaanaa ili baa tiri, dad baa waxaa lagu xidhaa mataqaanaa calan baa ee la soo baxday. inta qof ee ku dhimatay calanka ummadda Soomaaliya ku dhimatay ee ku nool goboladaasi you can imagine lama xisaabi karayo. markaa waxaan leeyahay meel kulmin karta maaha. waxay kulmin kartaa haddii dadka reer waqooyigu intay soo wada fadhiistaan miis ay isweydiiyaan maxay noo dana. weli ismay weydiin reer waqooyigu maxay noo dana, meesha u socdaan la isma weydiin. dad baa hor socda, waa kuwa maanta ixtiraafka raadinaya, caalamka wareegaya. dadka caalamka ee ku nool ee Soomaaliyeed ee kale ee waqooyiga la degana way la yaabiin, waxay leeyihiin wareerka xagee u socdaan. iyaguna waxay leeyihiin ixtiraafka raadinayna. haddii ayna dadkii reer waqooyiga gudaha ku noolaa ama qurbaha wada joogaan ama gudaha joogaan haddii iyagu ixtiraafsaniin dee ixtiraafka raadinay maxay tahay? haddii meel warqad geeyaan oo ilaalana waxa kama jiraan ayaa ka filan. waayo dadka markay isla socdaan ay wax wada jir bay mataqaanaa wax la qabsan karaan. laakiin haddii dadkii ay kala socdaan oo 4 qof oo la shaqaysata oo maamulka Hargeysa joogta oo la shaqaysan oo arkaan inay matalaan beelihii kale dee ma dhici karayso. waxaan leeyahay Somaliland waxay noqon kartaa Somaliland oo la wadaagi karaa ama ay kulmin kartaa marka miis soo wada fadhiisto ay ummadda reer waqooyi wax isla gartaan. taas baa lagu ogaan karaa. laakiin inta taasi aanay jirin dee weligood ba soo socoto. imika 25 sano ayaa hawshan waday ilaa haddana wax la xalhayaa ma jiro oo aan ahayn in dhaqaalaha iyada laga soo urursanayo caalamka ee sadaqada caalamka ummadda lagu maamulo. sadaqadaasina ay hal beel gasho way burcayo mataqaanaa berberiya Hargeysa ku kooban tahay ee dadka maxaan ku dhaha kale ee ku nool dhulka inta ale ku nool waxa la waadka arkayda abaar baa ka dhacday. abaartana waa mid lagu talagalay way wax tusaale saar ugu soo qaadan karaa. marka abaartu ay dhacday waxa la geeyay booyada biyo la geeyay. dadkii booyada biyaha loo geeyay meel loogu shubaa la waayay. yani dhulka ceel kama qodna 400 kilomitir baa waxa jira hal ceel ka qodnin. ceel biyo loogu shubo بركد بيو لوجو شباب لواي واحد لقارين لوجو شباب متقنا يعني شراع لوجو شباب أبغى لو قديو أو بيودي كلا شراع كل شفته بيه كل شفته مركب إحنا هاي واحد كل مسلم جرتو ما نقول مكرتو إلا يروقوا يجلس أقوى صدقنا أقوى سمجرو وأنا ما سنتي ما سنت عمر وحنقصه النغانا يا أنا جبدي برنامج كوتشرنا أحمد وحن أحمد جبدي أقويدين لها واحد oran lahayd ama aad u jeedin lahayd ama reer Khaatumo ama guud ahaan Soomaalida oo dhan. horta ummadda Soomaaliyeed waa salaamaya. dhibaato fara badan bay soo martay ummaddu. ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay dhibaatada naga qaado. ilaahayna nimco iyo barwaaqo uu nasiiyo. cadowgana hayseena qaybsadana ilaahay naga qabto. dalka iyagana xandumad taama ilaahay noogu soo celiyo. يعني لا يرتك برينا دماء الصومالية كارهان ومدر خاتمه وعن الجميع عاخمات إمر بيبي عبادة سن وعن وباقيا إني إسكاكيريان هذا هو الدلكوز كجرة وعن وباقيا إني إسكدفاعا وعن وباقيا إني جهاد تيكروان مدبلا بعد نبل الفادي ما مرخيها فادي جدول بعض تنطي مر بعض الله قري ولا واي مر حدي له واي نقوليه إن دفاعنا أولادي إن دفاعنا هواك إن دفاعنا هؤلاء إن دفاعنا إلهي وين فريق هدينا ندفاع عند يسبرنا إلهي بيسر وديه هل الجهاد أنا قبل هل منيت مقصينا يا عمر
marka adigu maxaa kusoo gunaanadi lahayd gabagabadii waxaan odhan lahaa horta halkan waxaan ka salaam ummadda soomaaliyeed waxaana leeyahay sida axmed sheegay dhib baa ku dhacday ilaahay in dhibta ka dulqaado oo ummadda soomaaliyeed noqdaan ummad soomaaliyeed oo walaala oo jacaylkii iyo wixii ka dhexayn jiray dib usoo noqdaan ayaan ilahay ka rajaynaynaa gaar ahaan ummadda reer waqooyiga waxaan soo jeedin lahaa reer waqooyiga waa inay gartaan waxay doonayaan reer waqooyiga ma aha inay beele u garato waxay doonayaan iminka sidaan arkana waxa weeyaan beel baa u socota beeshaasi waxay doonayso ayuunbaa meesha soconaya waxaan leenahay beesha waxa ka badan beelaha kale ee degan meesha marka waxaan leeyahay reer waqooyi waa inay gartaan meeshay u socdaan reer waqooyiga waa inay gartaan waxay doonayaan reer waqooyiga waa inay gartaan waxay dantooda ku jirto dantooda waxay ku jirtaa reer waqooyiga inay miisooda fadhiistaan oo istixgeliyaan oo is ixtiraamaan taa haddii la waayo waxa weeye sidaa maanta ay ku socoto ayaa lagu jirayaa qarnayo marka waxaan leeyahay reer awdal waxaan leeyahay reer awdalow dan iniima aha inaad daba socotaan afar qof oo u shaqaysa somaliland waxa dan inii ah inaad mataqaanaa diidaan oo tidhaahdaan mataqaanaa waxa meesha ka jira waa xaaraan waxaan la soconnaa maanta inuu wariye ku xidhan yahay gobolka awdal ninkaas waxa uu sheegay oo uu dadka weydiiyey reer awdal yaa garanaya heesta somaliland iyo soomaaliya dadkii waxay dhahdeen ma garana somaliland ma naqaanba taa waxay kutusaysaa in wada lahaanshaha somaliland inu meesha una jirinba wax la yidhaha somaliland ayna jirin ee ay jirto ummadda soomaaliyeed ay u tahay soomaaliya tahay ninka ku nool awdal iyo ninka ku nool kismaayo wuxuu aaminsan yahay inay soomaalinimadu jirto laakiin haddii soomaalinimadii hargeysa la leeyahay waa lagu baabinaya dee ma baabi'i karto qofka lagama mayri karo soomaalinimada reer awdal waa soomaali weey waana mataqaanaa ummad ku nool waqooyiga soomaaliya ku nool haddii reer waqooyi wax wada qabsanayana diyaar bay u yihiin hadday soomaali wax wada qabsanaysa diyaar bay u yihiin laakiin haddii la yidhaahdo waa la jojoobaya laysma jojoobi karo jojoobkii waa dhammaaday ictiraafna ma jiro wax jiriyaana ma jiro reer awdal waxaan leeyahay waa reer awdal danteena aan garanno aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa waxaan mar labaad u mahad celinayaa cumar maxamed oo ah awdal state xubin sare oo awdal state ka mid ah iyo axmed salebaan isaguna ah xubin sare oo ka mid ah khaatimo waan idinka mahad celinaynaa waqtigiina qaaliga aad noo soo horteen caawana barnaamijkeenii intaas ayaan kusoo koobaynaa waxaan u mahad celinaynaa dhammaan daawadayaasha tv-ga galbeed tv meel kastoo aad joogtaan waad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu